kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan caaw barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirkii golaha wada tashiga qaran oo lagu jahawareeray xilli maanta mar kale la soo xiray bilaa natiijo la'aan iyo beesha caalamka oo tallaabo degdeg ah ka qaadanaysa shirkan midowga murashaxiinta oo mar kale looga yeeray teendada Afisyooni si loogu qanciyo warmurtiyeedka laga soo saarayo shirka golaha wada tashiga qaran haddaba maxaa ka jira in amniga guud ee doorashada lagu wareejinayo Amisom xog la yaab leh oo soo baxday ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne Farmaajo oo hal arrin darteed u diidan in dib loo celiyo lacagta Imaaraadka isla markaana ka cabsanaya in lacagtaas loo adeegsado sidii xukunka looga tuuri lahaa iyo maamul goboleedyada qaar oo raba inay jeebka ku shubtaan lacagahaasi wararkeena kalena waxaa ka mid ah General Saadiq John oo beeniyay in uu la kulmay madaxweyne Farmaajo isla markaana uu qaatay lacago waali ah si uu uga soo horjeesto ra'iisul wasaare Roble iyo mucaaradka iyo filla Soomaaliya oo ku fashilantay qorshahan iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo qaaday tallaabo lama filaan ah kadib markii uu sii daayay xubnihii ugu sarreeyay ee kooxda TPLF kuna dhawaaqay wada hadal qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen sabti ah 8 bisha koobaad ee Janaayo sanada 2022 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaadada booliska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka gaarsiin saaxiibadiina idinkoo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanideen aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay ee shirkii golaha wada tashiga qaran oo dadku ay aad ugu jahawareereen kadib markii maanta mar kale shirka la soo xiray iyadoo wax natiijo aysan ka soo bixin shirka golaha wada tashiga qaran oo toddobaad muddo ku dhow markaasi ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta mar kale la soo xiray iyadoo shirka aysan ka soo bixin wax natiijo ah shirka golaha wada tashiga qaran oo ay markaasi ku wada jiraan amaba ay ku isbahaysan yihiin madaxda maamul goboleedyada shanta ah ra'iisul wasaaraha iyo waliba sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa la filayay in maanta shirka natiijo ay ka soo baxdo waxaana soo gabagaboobay kulankii maanta mid ka mid ah hoteelada ku yaala gudaha airportka Muqdisho uga soconaya golaha wada tashiga qarankaasi oo looga arrinsanayay doorashooyinka kulanka ayaa waxa qayb ka ah dhammaan madaxda maamul goboleedyada waxaana kulankan uu soo dhamaaday natiijo la'aan xukuumadda Soomaaliya waxay sheegtay in shirka uu sii socon doono haddaba waxaynu eegaynaa xogaha gaarka ah ee aynu ka helnay shirkaas iyo warmurtiyeedka ka soo bixi kara oo qaab hordhac ah aynu ogaanay xogaha warqad TV uu ka helayo shirka golaha wada tashiga qaran ayaa sheegaya in beesha caalamka ay go'aan adag ka qaadanayso shirkan maadaama madaxdu isku fahmi waayeen arrimaha shirka looga doodayo wararka aynu helayno ayaa sheegaya in beesha caalamka ay doonayso inay la wadeegto amaba ay la wareegto hogaaminta shirkan maadaama madaxdu isfahmi waayeen waxaynu ogaanay in madaxweynayaasha Galmudug Hirshabelle iyo waliba sidoo kale Koonfur Galbeed oo lagu daray gudoomiyaha gobolka Banaadir ay si weyn u diidan yihiin in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble halka ra'iisul wasaaraha Roble madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay rabaan in amniga lagu wareejiyo xukuumadda hogaamiyo ra'iisul wasaaraha arrintaasi waxa ka dhashay culays weyn waana arrinta shirka uu ka dhaqaaqi waayay isla markaana keentay in toddobaad shirka uu sii socdo xogtu waxa intaas ku daraysaa in beesha caalamka shirkan ay soo faragelin doonto sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana ay isku keeni doonto dhinacyada ishaya sidoo kalena la isku soo dhaweyn doono sidaasina warmurtiyeed ee shirka looga soo saari doono wararku waxay sidoo kale tibaaxayaan in hogaamiyayaasha Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ay wadaan qorshe markaasi ka dhan ah ra'iisul wasaare Roble oo ku saabsan shirka waxa wararka ay intaasi sidoo kale ku sii darayaan in ay jiraan qorshe kale oo ku saabsan in Amisom ay la wareegto amniga doorashada dalka waxa aad la iskula dhexmarayaa in ciidanka Amisom ay si toos ah ula wareegi doonaan amniga doorashooyinka iyadoo sidaasina xukuumaddu ay faraha kala bixi doonto waxa sidoo kale la tilmaamay oo la qorsheenaya in shirka la soo gabagabeyn doono wixii berito ka dambeeya ay noqon doonaan kuwo ay ku jiri doonaan qodobo ay ka mid yihiin in markaasi doorashada la soo gabagabeeyo waqti kooban isla markaana lagu soo gabagabeeyo muddo 60 cisho ah sida xoguhu ay markaasi tilmaamayaan wararku waxay sidoo kale sheegayaan in ay suurtagal tahay in midowga murashaxiinta shirkan markaasi sidoo kale ay ka qayb galaan siyaasiyiinta ku jira xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa mar kale looga yeeray teendada Afisyooni
si ay uga qayb galaan shirka u soconaya ee madaxda golaha wadatashiga qaranka. waxaa la sheegay in mucaaradka lagu qancin doono warmurtiyeedka soo bixi doona islamarkaana laga dalban doono inay taageeraan warmurtiyeedka shirkaasi ee kasoo bixi doona. xoguhu waxa ay sidoo kale intaasi kusii darayaan in mucaaradka naftirkooda aysan ku qanacsanayn qaabka ay wax u socdaan, maadaama maamul goboleedyada qaar ay diidan yihiin in amniga doorashada lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha. sidoo kalena mucaaradku iyagu arrintaasi ay markii hore aad u taageersanayeen, balse hadda sheekadu sidaas waa ay ka weynaatay oo beesha caalamka ayaa la leeyahay waa ay soo faragelisay shirka iyo weliba sidoo kale amniga doorashada intaba. waa hagaag xogaha kusoo kordha shirkaas wararkeena kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal. markaana aynu eegno wararkeena kale. madaxweyne farmaajo ayaa hal arin u diidan in uu markaasi celiyo amaba la celiyo lacagtii imaaraadka. sida aynu la socno, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa jimcihii markaasi sheegay in lacagtii imaaraadka laga qabtay 2018 isla markaana Soomaaliya lagu qabtay loo celinayo xukuumadda Dubai, balse madaxweyne Farmaajo ayaa arintaasi ku gacan seeray oo ka hor yimid. waxa uuna warqad u diray gudoomiyaha bangiga dhexe oo uu ku faray in lacagtaas aan laga bixin karin khasnada dowladda. haddaba waxaynu eegaynaa waxa madaxweynaha u diidan yahay arintaasi. xubno ku dhow madaxweyne Farmaajo oo aan la hadalnay waxay sheegayaan in uu madaxweynuhu aaminsan yahay in la rabo in lacagtan si dhaqsi ah looga qaato imaaraadka oo ay qayb ka rabaan qaar ka mid ah madaxda maamulada oo ra-iisul wasaaraha ku dhawaayadan. waxay kaloo kooxda madaxweyne Farmaajo ku doodayaan in xilli doorasho tallaabo noocan ah la qaado in ay fahmi karaan waxa loola jeedo. waxa ay ku adkaysteen in uu cilaaqaadka sidiisa sii ahaan doono, lacagtaana ay wareejin doonto dowladda na dhalan doonta ee Soomaaliya. sidoo kale kooxda madaxweyne Farmaajo waxay ku doodayaan in ciddii raaligelinta mudan in ay tahay amaba cidda raaligelinta mudan inay tahay Soomaaliya, maadaama dalkeeda la soo geliyay lacag fara badan si loo dhibaateeyo, laakiin lama cadayn karo in lacagtaasi dhibaateyn loo waday iyo in kale. imaaraadka waxay hore u sheegeen in lacagtaasi ay u socotay safaradooda iyo weliba sidoo kale safaaradooda oo ku taala magaalada Muqdisho ay rabeen in lagu taageero arrimaha uu imaaraadka xilligaasi ka waday Soomaaliya. dhowr jeer hore oo ay Itoobiya isku dayday in ay dhexdhexaadiso Farmaajo iyo maamulka imaaraadka, waxaa arinta adkeeyay dhinaca imaaraadka oo dalbaday in Soomaaliya ay bixiso raaligelin rasmi ah, balse dhanka Soomaaliya waxaa la sheegay inay arintaasi ka cagajiiday. kooxda madaxweyne Farmaajo waxay ku doodayaan in arintan aysan u fududayn sida uu ra-iisul wasaare Roble u dhigay, oo ay Soomaaliya mar walba diidanayd inay bixiso raaligelin rasmi ah. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad weli la socotaan. warqad TV ayaadna naga daawanaysaan. markaana Saadiq John waxa uu beeniyay in uu kulan la qaatay madaxweyne Farmaajo. saacadihii la soo dhaafay waxaa soo baxay qorshe uu doonayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xiriir kula yeesho saraakiishii badbaado qaran ee ka hortimid muddo kororsigii 2 sano ee fashilmay Abriil 2021. warbaahinta qaar ayaa qortay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxtooyada kulan kula yeeshay Generaal Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ahaa taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir, kaasi oo madaxweyne Farmaajo xilkii ka qaaday darajooyinkii ciidanna uu sheegay in uu ka xayuubiyay. dadka laga soo xigtay warkan oo qaarkood ay ku dhow yihiin Saadiq John ayaa sheegay in kulanku uu yimid kadib is-arag dhexmaray Fahad Yaasiin iyo Generaal Saadiq John, kaasi oo looga hadlay sidii ay u kulmi lahaayeen isaga iyo Farmaajo. xogta la helay ayaa sheegaysa in warkan ay faafisay madaxtooyada Soomaaliya, ujeedkuna ahaa in lagu kala furfuro saraakiishii badbaado qaran oo mar kale laga cabsi qabo inay ku lug yeeshaan iska hor imaad ka dhaca Muqdisho oo markaan lagu doonayo in lagu beegsado madaxweyne Farmaajo. kulanka dhex maray Saadiq John, Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo ayay saraakiil ka tirsan madaxtooyada ku sheegeen inuu ahaa is-cafis, waxaana arintaasi uu Fahad Yaasiin u xil saaray xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere ninka la yiraahdo. geesta kale Saadiq John ayaa beeniyay jiritaanka kulanka uu la yeeshay Farmaajo iyo is-aragga dhex maray Fahad Yaasiin, isagoo uu ku tilmaamay warkan been abuur weyn, laakiin xogta ayaa cadeynaysa in kulankan iyo qaabka loo baahiyay laga soo abaabulay madaxtooyada Soomaaliya. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qaaday tallaabo lama filaan ah kadib markii uu xabsiyada dalkaasi ka sii daayay siyaasiyiin mucaarad ah, kuwaas oo ahaa siyaasiyiinta ugu culculus ee kooxda TPLF. waxaa xabsiga laga sii daayay ninkii aas-aasay kooxda TPLF iyo weliba sidoo kale Jawaar Maxamed nin la yiraahdo oo isaguna mucaarad ku ahaa xukuumadda Abiy Ahmed. waxaa la sheegay in Itoobiya ay diyaar u tahay inay isbedel ka sameyso guud ahaan dalkeeda iyo weliba sidoo kale geeska. waxa ayna Itoobiya ku micnaysay arrintan in ay tahay
inay ka shaqeynayso dhabaha nabadda. sidoo kale waxaa suurtagal ah in ay wada hadal yeeshaan xukuumadda Abiy iyo waliba sidoo kale kooxda TPLF, iyadoo TPLF horey ay iyaduna u dalbatay wada hadal, balse wada hadalkeedu ma ahayn mid markaasi rasmi ah. waxaase hadda laga dhor sugayaa in isfaham arinta lagu dhameeyo, maadaama kooxda TPLF ay dib ugu laabteen ama ay dib ugu gurteen gobolkoodii Tigreega. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan hor lamid intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. bishaaro fursad dahabi ah ayaa loo hayaa dadka ku nool Muqdisho iyo nawaaxigeeda. hal daqiiqo ku guuleyso lacag ka bilaabanaysa $10, $20, $50 ilaa iyo $100 adigoo ciyaaraya ciyaaro fudud oo madadaala. sidoo kale waxaa tartamadan ka soo qayb geli kara dadka hibada goonida leh, iyagana waxay heli doonaan abaalmarino lacageed. waa fursad dahabi oo u furan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo nawaaxigeeda. isqorista tartamadan way bilaabatay waxayna socon doontaa ilaa iyo 10 Janaayo ee ka gaaraysan ka buuxsamine. wixii faahfaahin inta dheerna kala xiriir telefoonada iyo emailada shaashada kaaga muuqda.